kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qaybtii 134aad ee barnaamijka Tubta Nabadda. Todobaadkan dhageystayaal waxaan barnaamijkeena ku eegi doonaa maalinta caalamiga ah ee nabad ku wada noolaanshaha adduunka ee 16 bisha May, taasi oo si weyn caalamka looga xusay, iyadoo sidoo kale aan barnaamijkeena ku eegi doono doorka nabad ku wada noolaanshaha ee Soomaaliya. barnaamijka waxaa marti noogu ah Jaamac Cabdullahi oo ah qabiir sare oo arrimaha dib u heshiisiinta kala taliya wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyadoo sidoo kalena uu barnaamijka nagala qayb gali doono Cabdiqaadir Xarago oo kamid ah odayaasha dhaqanka maamulka Punt-land. hase yeeshee aan ugu horeyn barnaamijkeena ku bilaabo Jaamac Cabdullahi oo ugu horeyn ka hadlaya talaabooyinka ay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya u qaaday dhanka dib u heshiisiinta iyo midnimada. laga yaabo inaad maqashay runtii labadii sano ee ugu dambeeyay waxaad moodaa dardar cusub ayaa maaragtay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiintu ay gashay oo heer federaala. marka arinta walaal ugu muhiimsan aan kula wadaagi karaa waxa weeyaan waxa la diyaarinayay barnaamij maalin dhaweyd bishii 22 bishii 3 ee sanadkan golaha wasiiradu ansixiyeen oo loogu magac daray hanaanka dhab u heshiinta qaran. wuxuu ahaa muddo socday, dad badan oo kale laga yaabo hadda inay dhageysanayaan qayb ka ahaayeen dowlad goboleedada iyo qaybo kala duwan oo bulshada kamid ah baan la tashanay oo ku niri Soomaali u heshiinaysaa sidii loo heshiiyaa, maxaa laga heshiinayaa, iyo heshiisiinaya halkee ka bilowna kuwii horeysiina iyo wixii la mid ah. waxa ugu weyn ee soo kordhay waxa weeye in la sameeyo barnaamij ama hanaan dhab u heshiin qaran tan soo koobo waxay la heerar kala duwan iyo maaragtay qaybo kala duwan. waxaanu isleenahay hanaanka la dejiyay hadda oo jihaynaya dib u heshiinta oo jiha u sameynaya oo 5 qodob ka kooban. qodobka koowaad oo ah in dadkeena Soomaaliyeed marka hore mustaqbal iyo hir iyo rajo ay wada yeeshaan. talabaad ah wixii dadka dhex maray in laga heshiiyo oo gefafkii dhacay xadgudubyada aha iyo wixii hanti la kala haystay wixii la mid ah iyadna meel la dhigo. ta saddexaad dadkii kala irdhoobay ama isu calool xumaaday ee kala shakisaneen is-aaminsaneen in is-aaminaadooda iyo walaaltinimada iyo wadaniyadooda iyo wada noolaanshahoodii la soo celiyo. iyo ka afraad oo ah in dawladdii ama hanaanka dawladnimada dadka la heshiisiyo. iyo ka shanaad oo ah dib u dhis dhaqaale iyo ka soo kabasho diifti colaadda in la sameeyo. sida Jaamac uu sheegay horta door weyn ayaa looga baahan yahay in bulshada Soomaaliyeed ay ka qaataan hirgelinta qorshayaasha dib u heshiisiinta iyo nabad ku wada noolaanshaha ee Soomaaliya si loo hubiyo in dhibaatooyinka nabad xumida iyo nacaybka ay meesha ka baxaan oo dadkuna ay u noqdaan bulsho isjecel oo meel sanabada ugu wada nool. hase yeeshee balan marka hore dhageysana mid kamid ah aragtida dhageystayaasheena oo ku aadan nabad ku wada noolaanshaha iyo faa'iidada dib u heshiisiinta. magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Cabdullahi xirsi. Soomaaliya waxay u baahan tahay min qoys min qaran dib u heshiisiin bay u baahan tahay. wax la isweydiinaya ma aha faa'iido ma ugu jirta ama uguma jirta. faa'iida ugu jirto dal burburay 30 sano dawlad la'aan ahaa dhibaato ku dhacday wiil iyo aabihii kale irdhoobeen weeye. wax lagu soo celin kara dadkaas in gogol loo fidiyo dib u heshiisiin loo sameeyo la isku warxaarto oo heshiis uu yimaado. waxaa imaan kara nabad degdeg ah, waxaa imaan kara horumar, waxaa imaan kara wax walba oo si wada jir loo qabsado. aad buu mahadsan yahay. kaasina waxa uu ahaa mid kamid ah dhageystayaasheena oo ka aragti dhiibanayay nabad ku wada noolaanshaha iyo sida ay muhiimka ugu tahay bulshada Soomaaliyeed in nabad lagu wada noolaado. Jaamac, maxaad nooga sheegi kartaa dhinaca caqabadaha ay idinkaga horgudban sidii aad ugu guuleysan lahaydeen in la helo bulsho Soomaaliyeed oo meel ku wada nool nabadna ku wada nool? marka horta waa runta caqabado way jiraan. anigu waxaan aaminsanahay marka la eego meeshii laga yimi iyo meesha la maray iyo inta inoo dhiman wax badan way qabsoomeen alxamdulillah. marka horta meel fiican anigu rajo fiican ayaan qabaa. waxaan leeyahay meel fiican baan taagan. caqabadaha hor taagan horta mid waxa weeyaan dadkeeni oo wali aan baraarugin. wali waa la fooraraa wixii dhibka inagu keenay ee marka hore bayna dumiyay ayaa wali la wadaa oo kamida cadaalad darradu kow ka tahay. waxa kamida duudsiga la isduudsiyo
waxaa ka mid ah isfaquuqa iyo ismuquuninta xoog la isku riixayo marka waxaan caqabado walaal horta waa mid dadkeena ka imanaya oo u baahan in laga gudbo dabcan deganaanshaha siyaasadeed oo wadankeenu amni darrada waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn dhaqaalaha oo isaga laftiisu talaabo kastoo qaado waxaad u baahan tahay inaad wax ku qabato arinta kale ee muhiimka Fatxi waxay tahay in xuska maalinta nabad ku wada noolaanshaha ee caalamiga muhiimada kale laga leeyahay ay tahay in suxuubta adduunka meel walba ay joogaan la xusuusiyo laguna baraarujiyo muhiimada balaaran ay leedahay nabad ku wada noolaanshaha taas oo saldhig u ah horumarka guud ee bulsho kasta oo meel wada degan hase balan ugu dambeyn jaamac weydiiyo sida qaybaha kala ee bulshada iyo odayaasha dhaqanka culimada iyo ururada bulshada rayidka amaba aqoon-yahanada lagu dhiirigelin karo inay kaalin amaba inay door muhiim ah ka ciyaaraan xal u helista khilaafaadiyada ka dhaca bulshada Soomaaliyeed su'aal aad u fiican weey because dadku marka la yiraahdo mushkilad jirta khilaaf qofku markiiba wuxuu raadinayaa talow sameeyay laakiin isma weydiin aday maxaad ku leedahay qaybtaadu maxay tahay marka la nabad laga hadlayo yaa ka shaqeynaya laakiin adiga maxaad qayb ku leedahay wadankeena inaga wada duminay horta qof aan qayb wax xusataban ma leeyahay riwaayadii magaceedu halaagii dhacay looma kala hadhin cid ka hadhay ma jirto haddana waxaan u baahanay nabadda inaan loo kala hadhin oo maaragtay cidina qof kasta anagu waanu baadhnay mushkiladu halkay ka yimaadaan mushkiladu waxay ka yimaadaan heer shakhsi marka qaybta ka qayb qaadan karaan walaal waxa weeyaan dhalinyaradu waxay waa mustaqbalkoodii horta nabad odayaashu de xil baa saaran ilaahay kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyati ilaahay baa batay waajib iyaga saaray dadkan xilalka haya xildhibaanada iyo wasiirada iyo wadada inta xilka loo dhiibay laga qaadanayo laakiin oday dhaqameedku waa mid ilaahay saaray weeyaan oo lagu xisaabtamayo ya haweenku nabadda qaybta ugu weyn ee ka qaadan karaan waxa weey inay caruurta ay gacanta ku hayaan iyo kuway korinayaan ay ka shooda nabad ku beeraan macallimiinta iskuulku iyagu de waxay ardaydii bay gacanta ku hayaan Allahumma salli ala aqoon-yahanku wuu qaamaysan yahay aad buu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa Jaamac Cabdullahi Cigaal oo ah qabiir sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya weli dhageystayaal waxaan bartanka uga jirnaa barnaamijkeena Tubta Nabadda oo ah barnaamij uu soo saaro xafiiska kaalmada qaramada midoobay ee Soomaaliya waxaana weli inoo soo socda qaybihii kale ee barnaamijka hase sevelan markan eegno Cabdulqaadir Xarago oo kamid ah odayaasha dhaqanka ee maamul goboleedka Punt-land oo isaguna ugu horeyn ka jawaab celin doona sida ay ugu guuleysteen horumarinta nabadda iyo xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya bulshada reer Punt-land runtii odayaashu waxay ka shaqeeyaan ama u xil saaran yihiin ama mas'uuliyadooda koowaad ay ka dhigaan inay ka shaqeeyaan nabadda nabadduna waa wax caam ummadu noloshoodu ay ku xiran tahay dabcan waxaan u maraa bulshadu inay noqdaan hal qura inay wadaagaan degaankii yacni daaqii biyihii waxbarashadii amnigii intii yacni noloshu ay ku xeerayd inay wadaagaan oo ay ka faa'iidaystaan bulshada meel ku wada nool inay noqdaan bulsho ka caafimaad qabta colaadaha iyo waxyaalaha noloshooda wax yeeli kara marka saa darteed waxaan ka shaqeynaa in khilaafka markasta la yareeyo iyo afkaaraha kala gedisan loona dhaqaaqo dhinaca horumar marka saa darteed baanu runtii bulshada jecel lahay inay ku wada noolaadaan nabad iyo istiqraar Cabdulqaadir dhinaca kale bal waxaad iiga warantaa sideed wax uga qabataan arrimaha ka hortagga khilaafaadiyada sidees ugu dhiirigelisaan bulshada arrimaha dib u heshiisiinta iyo isu tanaasulka dabcan hadee markii wax dhacaan ba khilaafka marka la daweeyaa inta kale ee bulshadu way isdhex degan tahay oo waxa ay bini aadamku wadaagaan laakiin markii ay wax dhacaan waxaanu sameeynaa in la sameeyo labadii jinaax in loo dhaxayo in loo garnoqo in waxa isku hayaan aanu markaas annagu la wareegno si looga garnoqo oo markaa cidda ay raacayso iyo cidda markaa aan markaa ay markaa gartu raacayso ama markaa gar leh
aan ugu cadayno saa darteed baanu marka waxaanu markasta xooga saaraa bulshadu inay noqoto bulsho garnaqsata wada fariisata wada hadasha markaasna iyaga ayaa isu tanaasula annaguna markaa xooga waxaanu ku saaraa inaanu isu tanaasulaan iscafiyaan wax kala qaataan wixii markaa xaq loogu leeyahay qoladii xaq loogu leeyahayna ay xaqaas keento kuwii lahaana la gaarsiiyo marka waa tahay Fatxi inta inaanu gudbin su'aasha xigta balan yara dhageysano aragtida mid kale oo kamid ah dhageystayaashana oo ka hadlaya muhiimadda ballaaran ee dib u heshiisiinta iyo isu tanaasulka رمضان الكريم horta marka ugu horeyso magacaygu waa Maxamed Cabdullahi in la heshiiyo in diinta islaamka xataa aad ugu wanaagsan tahay oo ummaddu waa inay heshiisaa waa hadii ay tahay dib u heshiisiin xaq ah oo nidaamaha oo lug dadku aysan u laabnayn ummadda Soomaaliyeed inay heshiiso iscafisho caloosha isu furto maxaan ku radaa bisha Ramadaan ay ka faa'iideysto ay wada duceysato maxaan ku radaa sinada waxay noqonaysaa mid arrinteedu meel mar ah aad buu mahadsan yahay dhageystahaasi cabdiqaadir ugu dambeyn maxay tahay fariintaada ku wajahan dadka ku dhageysanaya si loogu guuleysto dhismaha bulsho nabad ah oo si nabad ah meel ugu wada nool Soomaaliya waa dad islaama boqolkiiba boqol waa dad ehela oo marka xigaala ah oo xidida sadarteed marka waa dad wax kasta la oran karo way wadaagaan sadarteed marka si ay uga faa'iideystaan muslimnimadooda si uga faa'iideystaan midnimadooda si uga faa'iideystaan madax banaanidooda waxaan ugu baaqi lahaa culaad iyo dhibaato la abuurin marka laga garnaqsado la fariisto la dhameystiro si halka loogu ekaysiyo aad buu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa Cabdiqaadir Xarago oo kamid ah odayaasha dhaqanka maamulka Punt-land isla markaana barnaamijka nagala qayb galayay markana dhageystayaal waa dhinacii wararka barnaamijka hay-adda qaramada midoobay ee UN Peace Building ayaa meel marisay mashaariic lacag ku kacaya ay dhan yihiin 14 milyan oo dollar si loo taageero qorshaha xasilinta ee Soomaaliya iyo horumarinta dib u heshiisiinta tani ayaa ka dhigan in Soomaaliya ay heshay lacagihii ugu badnaa oo ay meel mariso hay-adda UN Peace Building si sare loogu qaado xaaladaha nabadda iyo amniga dalka guud ahaan hay-adda isku dubaridka arrimaha gargaarka bani'aadamnimo ee qaramada midoobay ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano UN-OCHA ayaa ka digtay xaalad abaareed oo aad u daran oo ka dhacda Soomaaliya kadib markii ay baaqdeen roobabkii la filayay inay ka da'aan dalka Soomaaliya xilliga guga kaas oo nolosha beeraley fara badan oo Soomaaliyeed ay ku tiirsan tahay hay-adda UN-OCHA ayaa waxa ay sheegtay in dad gaaraya ilaa iyo 2.2 milyan oo qof ay qarka u saarayeen macluul daran ay u baahan gurmad degdeg ah oo lala soo gaaro si aysan u dhicin xaalad la mid ah tii dhacday sanadkii 2016 ilaa iyo 2017 waa tahay dhageystayaal markana anagoo soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka balaan u beerno dhinacii madadaalada barnaamijka waxaa mar kale maanta stuudiyaha nala fadhiya Liibaan Cabdi Warsame oo inoo marin doona tii yar oo gabay ah oo ku aadan muhiimadda ballaaran ee ay leedahay dib u heshiisiinta iyo weliba isu tanaasulku maanta waxaan ku talagalay gabay la yiraahdo nabadoon oo ka hadlaya baahida loo qabo dib u heshiisiin dalka in lagu soo dabaalo wuxuu yiri degmo meel ku wada nool markay duunyo kala qaado ama ay ku diraan dhul iyo daaqsanka iyo ceelka sida loo daweyn jiray wixii daana kala gaarta dib haddaan u qoonaansano dhab u daraasayno dakanada fogaatiyo cunfiga doogta kicinaya nabadoonno duugaa jiriyo duubab dhaqameed dab haddaan la kala qaadanayo durugta ceebtoodu dib baa laga heshiin jiray wixii dumaya yeelkoodi ha yeeshee dadweynaha dhib baa loogu dawgalay dhaqankaas waxaa dooriyo nabadda noo diidan dagaalo ogayaal dhigacab iyo dooxatiyo tuugo koox danleeyo shacbiga daab isugu dhiiba cidna aan u diirnixin haddana diinta kula sheegta dibindaabyadooda markaad eegto damacooda waa guduniya daabkeeda oo wax isma doorshaane dabkay horinayaan iyo intaan didna hadalkooda dhalinyarada ay kala dileen duulkan bahaloobay aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa Liibaan Cabdi Warsame oo tixdaasi gabayga ah inoo marinayay waxaana dhageystayaal intaan ugu dhamaaday barnaamijka Tubta Nabadda oo ay mar kale halkan idinkala socodsiinayeen Cali Max'ed Guutaale iyo anigoo ah Fatxi Max'ed Axmed fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiina adinkoo noogu soo hagaajin kara bartaan ku leenaa Facebook oo ciwaankeenuna yahay Tubta Nabadda hase yeeshee waxaad hadda u diyaar garowdaan qaybtii u dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhageysanaysaan